كوين قاول يستاهل إن وحاها يست نفسي عبيد هايستو إن إلهي سبحانه وتعالى أنا وأجي أيضا وأكتهي إن مقال كان كقصة هذلي الله نحرسته جنون مشغول الله جي باب النور ويستاهل عبيد وهاي مقال كان كقصة هذلي إن مركز حواي إن مقال كان كقصة هذلي لحمال حواي وتعزيز أي تهل لحمال كورو بنت مركز مقال كان كقصة هذلي إن متقنا إن حواي إن برنامج كان كوفا في odayga waa kaasa sayl cabeed nin aad iyo aad u culus oo suldaanka abeesha ee ka dhalatay aad looga ixtiraamo boorame ilaa Soomaaliland nin aad looga ixtiraamo magaciisa saddexna muuqaalkaas ku sheegay haddana way ku xilnaa odaygaas la horta istaahil waxa way reerka ayda ugu yar gabdhaha macnaa odayga u dhalay waana jeclaa marka odayga waxa looga sheekeeyay in qisaas waa ka soo hadlay mutaqana gabadha suuqa gashay sax camal odayga lagu dhahay laakiin odayga madiya waxaas ma daawado gabadha hoosheeda waxay qabato waxba kama ogeen marka in uu duceynay in ila ugu dambeyntii uu dhintay Allah u naxariisto janas mashu Allah geeyo baabo wuxuu dhintay bishii September sanadka hore adiga sagaalaad tobnaad ku waad labaad adiga 5 bil moogeeyo adiga Allah u naxariisto 5 bil koor dhinto 5 bil xogaa koor dhinto adiga muuqaalkaas aan ka soo hadlay in mataqaana walaalayaal istaayil hadda sida ogtiin shalay ayadoo oonaysa soo gashay wixii tiri caajis ay haysto wuxuu tiri ma faraxsani aniga murmuru ay hayso waxawaaye aabeed waay oday culus boorama ka culus qabiilka jufada waa idin sheegi doonaa magaca aad iyo aad culus magac imaamus ku leh aad loo ixtiraamo nin wadaad haddana wadaad oo ilmihiis oo quraanka iyo tarbiyada ku soo tarbiyay gabadh dhalay oo saas ka noqotay waa dareemi kartiin oo wali asoonan ogeen oo inay dhimatay inay adduunyo joogto iyo wax ka warqabino oo odayga dhintay waa dareemi kartiin waxa waa istaahil ويسألوا ويسات أودي مركو أنتوا حيت الأبي حتى مرة بدنا اللايف كشيكتي صار بدنا صودا لما بس أنا كور اللايف كشيك جت كون قاون اللي جرتي أنا يروح عن كسر جدا ضد سودان وفدي لو بقعه ضد كوي من جد إني كفتمس إني فانيس نو مركز استايل وعنكو أمانة ورت عبيد إني قرسي ضد كذا إني خرستي معناه وكو أمانة محيلي هذا الشيء اللي عيبك كسر أدي هذا لوسي عيلة أودي صار نول العيلة مقطع مركز إيه قرس ورته وفي عند أدي هذا أمانة استايل ولا ليال إن وديك عم يعيش الله نور أحمد جبريل بقرة بورمة يسومنا إذا أنا قول مجرته سلطان كباشة واي مركي جود بيرسل قصته ميكائيل قصته وحواي نور وحواي متقان يونس نور يونس سلطان كود واي الله يا أرحم الراحمين إن مركود أنت أيده ولا قري أو مديا سكاركتي واتيات الله كشت أيده وينيسو تقنا إن مركي وحدين وحواي عد كقبة عد هذا شمجت محل غير كوال الدري ولا مسلام يجري ملان يجري محل نمسو سلام كتلا أبان واحد أنا وأنا حبيسي أما نسي ولا كلهم مركا سلام دس كم قاعد يجري لكن هوي وارد هوي واحد شو هوي نحرس هوي واحد هوي ذاك قبتي هوي لا هذا الشيء هوي إنه يعيش على هوي وكود عينا واحد سكناف قبل في عنا كل شيء هوي ذا برد وشكت هوي إنه تحسيس أبو إحنا وحوي كوي قاون هوي ذا إحنا حوا قلبي ودجس تاسوا فانتين إن odayga waa kaas walaalayaal qof walba kasamaro ama gubirsin oo oday odayga wali qana nuur ahmed mutaqana jibriil boqor nin aqoon ma jira allah u naxariisto jalada meesha uu soo baaba la geeyo in walaalayaal istaayil waxa odayga aabeed waaye marka istaayil muuqaalka uu soo gaara magaceeda allah istaayil nuur ahmed allah mutaqana magaceeda saxda laakiin waxaan magaceeda yasmin iyo kuwa qaawan iska qaadata kuwa qaawanay istaayil kuwa qaawan ku dhawaa laga fiican laakiin istaayil ka fiican istaayil horta ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ku jecel yahay wuxuu ka dhaliyay oo aabba kaaga dhigay ninkaas legendka ah aad iyo aad u culus miisaan weyn ku leh alla ya raxmaan raxiimiin adduunyadana waxa waaye maalintaad dhimato oo qabri lagu geeyo maalintaas qofka ka soo noqosho ma laha mina waxa waaye toobadkeen iyo haddaan toobadkeenaa iyo ma jirto ilaa hadda istaayil jaanis haysta waa kaa weynahay waa kaa aragsanahay talaan ku siina maanta intaad soo tuma karto intaad wax samay karto soo sameeyay waxaan iska dhaaf ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo noqo aniga taariikhda waa haya gabar fiican qalbi fiican reerka gabar ugu fiicanaata aabaan aad inuu ku jeclaa oo walaalaha hataa waxa way ka maseeri jireen waxa dhan aan waa haya gabar aad u qalbi fiicanaata ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku jecel yahay hadda waa ka safiiri soo ku sahluunay fiiri macna soo qalbigaaga niidaad u gilay fiiri wax kasta macna gabar qalbi fiicanaata walaalay waxaan iska dhaaf afaaraan ka bax إلهي سبحانه وتعالى ونقو
aabbahan u duceey muraad u akhri aabbaha inta soo weysa qaad maarta markaa salaad dukato aabbaha u duceey quraan u akhri haddaad lacag haysato ilaahay lacag aad jaabkaada ku jiro waxa waaye soomaaliya qof wac dad wac 2 neef 3 neef hala qalo macnaha waxa leedahay aabbiha lagu soo duceeyey boorama meesha rabta soomaaliya muhiimad waxa waaye ina xoolo u qasho aabbaha muhiimad intaas waaye haddaad isbeddel isku arki weyso farxad isku arki weyso qof aad iyo aad farxsan isku arki weyso oo murugtan waxaan haddii kaa bixi weyso maan dadka badan oo markhaati waaye waan ramadaan waaye aniga warkayga been waaye ilaahi subxana wa taala jala jalaaluhu waa ku jecel yahay istaahili dadkan warkooda iska dhaaf waxaan si sulun macnaha uga soo bax gabar fiican noqo waxaad adduunyo soo fali karto waa soo fash haddii wax tarayso waxaa soo tuma karto tumasho waa soo aragtay wax tarayso haddii wax tarayso waay waa soo aragtay marka waxaan inta iska dhaafto aabbaa u duceey quraan u akhri xoolo u qal kadibna waxaan iska dhaaf dadkaaga soomaaliyeed waa ku jecel yihiin soo dhaxgal waa ku soo dhaweynayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu